السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وchannel كيني NM Beauty وصد هربا وقبرتين وحيابها قرحنتا إذن سو بنديجي تشري وليبا قرحنتا فرسمة قعنتا لغو سميستو إيه قريها لغو سميستو ما شاء الله ولاليهين NM Beauty ما أنتم حيدين ودان كالا إسكارك maanta waxaan idin wadnaa biin aad u qurux badan ama taako hadba saad u taqaano oo ilmahaaga gacanta ugu samaysanayso toobka ilmahaagu xiran yahay ama cambuurka uu xiran yahay maasha Allah inta suuqa soo wareegi lahayd aad ka fikiri jirtay taako ugeega ama biin ugeega inaad hesho kaalay gacantaada ku samayso adoo gurigaaga jooga soo dhawow haddaba channelkayga haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe gambaleelkana furo haddii aad hore noola joogtayna fadlan soo dhawow waan ku soo dhaweynaynaa waanad mahadsan tahay maanta haddaba maasha Allah kaala iska arag binkeenu samaysanayno quruxdiisa waa la yaabay haddaba sidaad channelkeena ula socoto ugu xidhnaato waxyaabaha badan ee insha Allah soo socdeen soo gelin doono ee kadarada guryaha lagu sameeysta ay kamid yihiin ee xinaha xabagtii kamid tahay ay biinankan oo kale kamid yihiin nashqadahooga kala duwan fadlan gambaleelka furo haddii aad hore noogu cusub tahay maanta haddaba waxaan idin wadnaa biinka wata alaabaha u baahanahay baan idin sheegaya waxaan u baahanahay laba maryood oo kala duwan oo midna cadaan tahay ama casan kalarka jeceshay wad ka dhigan kartaa adigu anigu laakiin maanta cadaan iyo casan baan soo qaatay waxaan u baahanahay biin kale lagu xidhayay maqaski yara dhalaalki yara lagu qurqurxinayay xabagtii muxuu ahaa hot guluugi wayaan xabagtii kululayd lighter aynu ku hagayn ku dhalaalin doono duniya irbad haddaba ka biinki baan bilaabayaa marada labada maro waan kala weynaysiinaya afar maro weeyaan laba dhinac isu weegihiin labana dhinac isu weegihiin oo laba dhinac isku leegihiin markaa duntan tolaya dhinac dacal baan qabanayaa duntii irbadaan ku tolaya markaan tolo een dhameeyo ma sha Allah wad arkaysaan si wanaagsan oo duntu yar yar tahay baad ugu tolanaysaa si uu fulful qurux badan kuugu noqdo qaybtii hore waan dhameeyay labadii afartii maryood waa labadii maryood ee cadaabin bilaabeena tii labaadna waan iga bilaabay lababa dhinaceegaad bilaabayso isugu tolaysaa waad dhameynaysaa kadibna waad isku guntaysaa duntu soo jiid isku gunud markaa labada maryood ee cadcad si ay kuugu soo baxaan ful yar oo qurux badan dunta geejiso kadibna maqaska iskaga jar inta yar ee ku dheeraadka ah ee dunta ka soo hadhay irbada aad iska goynaysaa ka ful qurux badan bay noo noqday wali hawlka ma dhawa waa qaybtiisii koobaad dunta yar baan iska jaranaa imika ka ma sha Allah kalarka adigu jeceshay baad ka dhiganaysaa anigu casan iyo cadaan baan ka dhigtay qaybta cas baan turinaa imika qaybta cas way ka yartahay qaybta cad maryaha waanad yara kala dhuubaysaa waanad yara kala gaabinaysaa winaga tolanay afka yare hore lighterkaad kaga dhajinaysaa si aanay maradu fag kaaga yeelanin way wax qurux badan kuugu noqoto sidii ka horun baynu toleynaa kana labada waan isku qabanayna dushaynu ka saaraynaa kii labaadna inaga dhamaynay isku gunud sidii kii hore ما شاء الله فلير بنقنيا كي هرو كيرانيا مركا دنتم بتقول كيتشينسا سو فلكو كوغو عنادو inaga iska jarnay ما شاء الله كي هرول ويسكويجين وكذا يريهين لكن كلا يريد waxay noo sameynaysaa micne aad u weyn markaynu istul dhigno waa in labada mara kala muuqdaan hadeen isleekaysiina laakiin waxa ma kala muuqanayna ka lighterkaas aad kaga dhajinaysaa afka hore ee marada waka inaga dusha iska saarnay dhexdeenu kaga duubaynaa dun yar si isku qabsadaan hadii kala xabagta waad ku dhajin kartaa anigu laakiin waan fudaydsaday دون يرومان كل شيء
xabagta baaskoolada weeyaan xabagteenu isticmaalaynaa xabagta kulul ee baaskoolada aynu isticmaalaynaa aniga duntaasaan ku geejisanayaa marka maasha Allah fil qurux badan buu noqday hadba toobka ilmahaaga ama cambuurku xidhanayo in baduu ka siinaysaa kalarka adoonus dee isku haya iskama hagrada ma maqli jirteen waaba sidii un ka maasha Allah dalaalka ayarna waan ku sii qurxinaynaa baashaar dhexdeenu kaga xidhaynaa waa marada yarana gacanteeda ku samaystay maryahan aanan ka sameynayo biinka fulkiisa baan isku laabay on liid yar ka dhigtay aniga dhexda kaga xidhay markaasaan biinka yar ee biinankeena yar mid madow aad ku xidhanaysaa taankadeena yar ee timaha caruurta ugu xidhno xabagtiin ku dhijinayna marada yar baynu ku soo laabeynaa marada yar laba shaqo way ku qabanaysaa biinka way kuugu soo dhijinaysaa xabagta waana ku adkeynaysaa quruxna way tahay wada wixii yaraa dhexda ka kala qaybsano quruxaba ku noqonayo maasha Allah iska jarayna marada inta dheeraadka ka maasha Allah biinkina waxa kuugu dhigsan dalaalka yar baynu ku nabanaynaa yar baynu goosanaa hadba inta kugu filan baad goosanaysaa anu imika 3 liid baan goosanayaa 2 liid baad ka dhigantaa 3 baad ka dhigan kartaa inta yar oo kaliya aad ka dhigan kartaa laakiin aan ku soo yar laaban jeclay mar walba inta yar dhexda oo dhan u dhalaasho alaabtan oo dhan gurigeena ay taala haddii aanad haysanin oo aad isticmaalin suuqa waad ka soo iibsan kartaa meel kasta joogto qiimo jaban waa laga siinayaa wax badan kuguma qaadanayso wax ku anfacayo gurigaaga ku yaalo anytime aad samaysan karto xabagta yar baynu marinaynaa halkan dhag oo inaga kaga dhignay insha Allah halkan maradii baa xitaa ku qaranaysa halkii biinku uu kaga dhijisatay kuma muuqanayso marka yaaba ka qurux badan yahay ilmahaaga dawakaas hooy dumaro quruxda ha moogaanina sirtu waa quruxda marka maasha Allah inantaada yareed ka shaantada yareed ka sitadii cidna kama sidato kad maalinba nashqada doonto samaysato waliba nashqadan oo kaliya ma ahayn noocyo badan insha Allah baynu samayn doonaa marka timihi geersaa wax dhama insha Allah kaalis gaar qurux injirka yar waa inuu injir yar safti ku ahaado si ilmaha timihiisa oo si fiican ugu xidhmo noocyadan oo dhan idin soo wada waa biinanka yar caruurta xaada loogu xidho iyo taakooyin kale ama biinan kale oo nashqada kala duwan ayo nooc biinka aad doonayso gurigaaga ku samaysan kartaa kan waa taakooyin kale ciyaalka xaada loogu xidho ama timaha yar loogu qabto ma hadiyadu sii deynayso waa biinankeena yar mid madooba aynu timaha ku xidhano koofeeradeenu inoogu shaqeeyaan oo baynu habaysanay in hagaajisanay nashqada ka duwan nashqada cusub si aad waxaas oo dhan u daawato fadlan subscribe channelkeena faa'iido badan insha Allah waad ka heli oo ku raali gelin doontaa adoo gurigaaga joogan aad wax walba qurxisan karto maasha Allah aad ka dhigan karto waa dibad baa u baahan tahay sheekadan soo maaha hadda waan idin soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidaa iyo
videogeena dambe insha Allah